imisa adoo kale arji ila timiyo oofiin maayo aan idhi awada u jooje 4 saniyo dheeraad arrimahan dhisaynay anisidhi idlaadeen amba wad adkaynine wadnahay ololaye idhigo abaalo arrintayda meel mari kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal xilli kasta ay idin tahay iyo waqti kasta ay idin tahay haydin wacnaataa dilanahay iminka soo wada arkaysaan timsa qaawadiin dhinacyada ay fadhiyaan maanta waxaan idin haynaa challenge-gaasi say u soo kala bixi og yihiin idinka ay idin deynayna sa u soo kala saartaan kooxda dhinacyada fadhida baashida midiga koonaha waxa fadhida raxma ku soo dhaw barnaamijkaada magaca ku bilaabay بسم الله أنا مقعد رحمة حسن محمود العاشر فرح عادي يا دود ماسنتي تيم سخاوتين أصحابته دمان مالك استيج كل اللي مهتسين aad u mahadsantahay raxmaha taas iminkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa oo baashida midig fadhida simsimsimsa ku soo dhaw hal iyo laba xadana leen ifraax walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay aniga magacayga simsim jaacab guladan dhaway walaal macaan aad boo mahadsantahay taasna waxa ay simsim aad u taqaaneen simsim sharaf balweyn eegi doona waxa ay kaga qayb qaadato challenge-ga iminkana bal waxaan eegi doonaa anisa oo koonaha fadhida hal iyo laba waxay oran lahayd anis ku soo dhaw ifraax cabdi cilmi aad iyo aad baad ugu mahadsantahay xabiibti qaali barnaamijka waan ku dhawahay barnaamijka isku furo codkaaga aad iyo aad baan ugu dhawahay aad boo mahadsantahay anisa ay ahayd taasna oo hal iyo laba tidhi iminkana waxa baashida bidix fadhiya bashiiran ku soo dhaweyn doona isna hal iyo laba wuxuu oran doonaa aad waa maadsantaa walaal qaali ifraax cabdi cilmi waan ku dhawahay barnaamijka tijaabi codkaaga waxaan u maleynayaa anigoon weligay haysin mise aan ka soo muuqan YouTube anoo heesaya bal inaan maanta uu nuxun isku furtay insha Allah waa barnaamij loo baahan yahay mar walba dhalinta maanta joogta inay ka qayb qaataan codkooda soo bandhigaan qof walba hibadu Ilaahay siiyay inuu la yimaado oo dadka la soo bandhigo si maalmaha kamid ah qofka laga faa'iideysto aad baan ugu dhawahay aad baan u maadsantahay aad iyo aad u mahadsantahay kaasna wuxuu ahaa bashiir oo iskiin baraayay daawadayaal haddaad nagu cusubtahay waxaan ku leenahay sheerta iyo committee-ga lecta iyo subscribe midnaba ha naga ilaabin iminkana waxaan noo bilaabayaa challenge-ga aan ku bilaabi doono raxma oo koonahayga ay midig fadhida raxma maxaad isku filan lahayd ifraax cilmiya horta walaal aad iyo aad u mahadsantahay laakiin anigu halkan wallaahi hambariyan ka diray aroos dan chance helay waxaan u dirayaa walaashay ubax oo ku magac dheer ubax dugsiya iyo seegayga cabdiraxmaan siike inkastoo guurkooga dhawaan maqlay saxmaan haynaa inkastoo guurkooga dhawaan maqlay aad iyo aad waxaan leeyahay baarakallah wa baarak xamdi وبارك عليك وجمع بينكم من رحمة حلية والله إن بدن لبضع قفص يوتيوب كوجه هاللين أبى وشيء بدن وده هاللين هذا لا عد سلام مدري مسيدك قاعد لا دري ما بملك السوية لا سقر سعودية أنا عد سقر سعودية أنا وده الشركة سنترين لكن حلويدية أنا وأنا ما أنت كلمة داوري لبض شريان أي إسكورسة لبض شريان ما إسكورسن كرين أبى ما نقول هاي عالف سكودر كرين أبى ما لبض قف شعال كده حين كرين حقيقة بكل يا هست من حقيقة بكل لكن قابلتي لا تشين حل مو يميل أنتري مشغول كأجنها عوانا دولك ومذوب أضوي موقني عنكم مبسوطة ما هي عنكي كالكعل موجودي سيمري أيكم ما حيو تعال باي ميراناي
waaw waxaa taasuna raxmo oo kaga qayb gashay heestaas iyo hambaliyadii anaguna sidoo kale labada jilay isguursaday waanu hambalyeynaa markana waxaan u dhiibi doonaa bashiir oo dhinacayga bidix fadhiya bal isaguna wuxuu isku furan lahaa amba uu kaga qayb gali lahaa daawadayaal idinka ayaa soo kala saari doona dadweynaha ayaa fadhiya hay ku soo bashiir farxi aad oo maasan tahay maadaama ay waxaan isku furo laba eray hada daho waxaan u maleynayaa in waxaan isku furtay bal anoonan heesaa isku fiicneen aad u dhageysanin bal inaan fanaana in kalena aan isqiimeyn doono hees tiraada adunba darada daliyada habeenkii dugsi kama fariiste oo dibadaha wareegay anna aqal dugsoba dawadii naftayday isha daawataayo hadba dhinac ka egtahay waaw kaasuna bashiir wada arkayseen heesta isku furtay maasha Allah baan leenahay waxaan oran karnaa waa fanaan bin oran karnaa idinkuna way eegi doontaan oo idinka kala saari doona waay anaguna waan daadinayna laakiin iyagu way qaadeen laakiin idinka ayaa dhageysanaya idinkaana kala saari doonaan jecelahay aad ayaad mahadsantahay bashiir imika daawadayaal waxaan oran lahayn barta cas cadaan ugu bedelaa subscribe iyo share midnaba haniga ilaabina baan leenahay wixii fariin aad qabtaana commentiga noogu soo reeba imkana waxaan ku soo dhaweyn lahaa Anisa oo baasha bidix fadhida iyaduna bal waxa ay isku furan lahayd Anisa ku soo dhaw ifraaxay horta anagu aan xagga heesaa isku fiicnayn iskuna wanaagsanay laakiin berigi hore aan heesaa dhageysan jiray imka maaha waxaan xasuustaa hees ay qaadi jirtay Fartuun Biribo oo ay tiraahdo waxaanahay ruux beed qaba haddana buka oon ladnayn waxaanahay ruuxan bogan habeenkii badi hurdada naftaydan biimiyo unugul belediya dhulkee ilay beercaasha kalay intuu baahida qabe baaqiya cabashada baroorta ma joojin karee adaa la hashaday baday wadnaha baxsanow hantiyey buuraha bacadkiyo hanfiga hargeysa adaa ibaday waaw maasha Allah codka afkaaga caana qabow lagu qabay codkaaga halaasiga bal waxaan u maleynayaa inaanay fanaaninta halkan fadhida aanay kala dhicin bal idinku daawadayaal nala eega iminkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa Samsam Sharaf oo u wada taqaaneen inay fanaanada haydiin channel Sakhaawadiin bal maantana waxa idin isku furan doonto Samsam bal waan wada eegi doonaa Samsam okay wala aad iyo aad baa ma santay ifraax anigu waxaan maanta waan calaalaya maanta waan calaalaya waxaan qaaday heestii ay qaado Hodan Cabdiraxmaan aad iyo aad baan u salaamayo odayga iyo carruurteedaba عشق ويتريستو جبديغا لبودو وحنجيدين كماريو أنا ديدا جيفكي محان كو جوابا جسميغا يغا مويه ميان كولا بجوغا ميان كولا بجوغا عشق بيتريستو جبديغا لبودو وحنجيدين كماريو أنا ديدا جيفكي محان كو جوابا جسميغا يغا مويه ميان كولا بجوغا واو ما شاء الله سمسم la oran karaa heesta calaalka noo qaaday wuxuu baa sabab ku keentay inaad qaadi heesta calaasha may wallahi waan iska jecelahay heesta calaalka nafta wajiga waxa iska dhistaa maxaa la yiraahaa qalbiga iska dhistaa heesta calaalka waan iska jecelay سمسم haddaan ku nidhaahno bal hees labaad nugu bis karasa waayo heesta waan ka hayna laakiin mid labaad kala nugu soo cela waxa jeceshahay adigu hees okay anu Hodan Cabdiraxmaan banaad u taageeraa waayo waxaan qaadayaa heestii
horta odaygii baa iga yara fog ma garanaysaa markaa hees baan u qaadaya ilaan jabba waa qofkaago intuu kaa jiro dhuldheer waqtina idinka la horjoogo intuu jadinoo furmaayo jawiga adag laga baxaayo adkeesa markiiyo dulqaadka jaaniska wuu imanayaaye xasuusta ku jooji axlaabta niyadaan ka wada joogno ilaan jidhka ruux tabaayo dareenkuna jiidanayo ma jiibsadaa wadiye halkuu joogayaa igeeya waaw maasha allah meesha waxbaa ka dhacay la odhan karaa hodan cabdiraxmaanna aad baan u salaamayna heeseeda ay samsam qaadisay sidoo wada ogeysiinayeen samsam markii horeba fanaanad waxa ahayd kooxda kamid aha inkastoo fanaanin kale kooxda hadana ka soo mid noqdeen daawadayaal idinka ayaan idin deynaynaa qiimaynta daawadayaal waxaan ku leenahay bartaas cadaan u bedel shartiyo committee laabta midnaba ha naga ilaabin iminkana waxaan ku soo dhaweyn doonaa aamin oo isaguna hadda inagu soo biiray aamin adiguna bal maxaad isku furan lahayd maasanta walaashay Ifraax maanta sabab jira ugu ayaanan barnaamijka codkayga u soo gudbin karin maadaama aan yar hargabiyax iyo duryahayo marka qof maanta bartan fadhiya ayaa ifronaya oo anugu wada aan doortay oo dooranayo marka aniisa ifran lahayd inaan kaas cudurdaarka uu sameeyay dartii baan ku furanayaa maanta marka waxaan qaadayaa hees uu qaadi jiray Fuad Umar walaalaha Sweden hadba saad u taqaanaan heestu waxay tiraahdaa jacaylka la awood weyne kiilka dhigay qays laylana agseexsha anigu abuurmo obadu ku faafo diday inaan adkaysto ikala asteeyo igu ka eryaaye imisa adoo kale arji ila timiyo oo fiin maayo aan idhi awada u jooje 4 saniyo dheeraad arrimahan dhisaynay anisidhi idlaadeen amba wadad adkaynine wadnahay ololaye idhigo abaalo arrintayda meel mari waaw meesha waxa la oran karaa waxa isku arkay fanaanin ayaa meesha iskugu timi aad buu mahadsantahay anis ayahay taasna daawadayaal intaas waxaan ku soo gabagabeynaa barnaamijkeena ahaa codkaaga isku fura oo fanaaninta si wada ogtiin hareerayda fadhiya daawadayaal idinka ayaa idinka sugaynaa sa u kala saar leedeen waxaan ku oran lahaa fadlan halka cas cadaan u bedel intaas ayaan ku soo gabagabeynaa